ilaahay inuu u wusciyo waxa laga yaabaa family fiican uu ka soo jeediyo wax la midka ah baabuur inuu iibsado saacad qaali uu iibsado lacag uu geliyo dhar muxuu ahaa ii sheeg waxba aanan ka soo baxaynin intaasoo joogoo kala duwan ayuu ku mashquulsan yahay ma aha xilligii waxaas aad samayn lahayd laga yaabo berri inaadan shaqo helin laga yaabo in systemkii lagu geliyo muxuu ahaa inaad tahay qof aan la shaqaalaysan karin xataa haddaad dalkii joogtid qof rabsho badan oo dhib badan in aad noloshaadii ku bilaabatid ma fiicno ha isxirxirin ha u dhaqmin sida nin odaya ha u dhaqmin sida nin da' oo weyn oo 60 jir waxaad uga dhaqantaa maskaxda bismillaah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa in aan muuqaalkan idinkula wadaago qaladaad oo ay dhallinyaradu noloshooda ka galaan inta ay yar yihiin lagana yaabo in noloshooda oo dhan arrimahaasi ay saameyn ku yeeshaan qodobadan waxa ay ka dhasheen kulan aan la yeeshay niman dhallinyaro oo 3 ah oo anigoo meel fadhiya intay ii yimaadeen isalaameen kadibna yiri ustaad way isku kay sheegeen markaasi waxay yiraahdeen inaan fursad kale noo helin baa suuragal ah waxaan ka codsanaynaa bal waxyaabaha inaan iska ilaalino ay tahay ama waxyaabaha inaan ku dadaalno ay tahay waxaan rabaa inaan wax u nala wadaagtid marka runtii aad iyo aad bay iga yaabiyeen sababtoo ah dhirnaantooda qof aadan aqoonin inaad inta u tagtid tiraahdid waxaan rabaa inaad iga caawisid ayada laftigeeda ayaa micno weyn ii yeelatay waxyaabihii aan la wadaagay markaan ka soo tagay ayaa waxaan ku fikiray waxaas waxa laga yaabaa inay dad kalena anfacaan dad fog qof aan ila joogin qof aan waqti isu helaynin sida hadda adigoo kale laga yaabo inaad halkan ka daawanaytay ama dhalinyaro ahaaw ama qof weyn ahaaw qodobada iyaga ah marka mid waliba waxaan rabaa inaan raaciyo xalkiisa oo problemyo iyaga ay sameeyaan ama gaabis dhinacooda ah xalkuna waxa laga yaabaa inuu saas u sii fogeyn laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan waxaan ka sheego haddii la yiraahdo qodobka koobaad ee dhalinyaradu marka ay yar yihiin gaar ahaan da'da 18 20 25 ilaa 30 wixii ka yar waxyaabaha aadka ugu dadaalaan waxa kamid ah ayna ku dadaalin waxa kamid ah in waxbarashada aynan xoog saarin waxbarashadu hadda waxay noqotay wax la isaga baashaalo wax la isaga dheeldheelo qofku wuxuu ku leeyahay waxbarashadu qiimo ma lahan badee haddii wax la barto meelaha la iska joogaa sidaas sax ma aha waxbarashada oo la dayaco waa musiibo waxbarashada oo la dayaco waa mustaqbalkaaga oo mugdi galaya laakiin waxaan rabnaa waxbarashada inaan isla fahamno waxbarashadu ma aha iskool inaad subaxi intaad u ka lahdid oo aad fadhiistid fasal ka baxdid 9 saac galabnimo iyo wax la mid ah haddana aad berri subax ku noqotid jaamacada 4 sano aad fadhidid ma aha waxbarashadu waxaa la yiraahdaa xad ma lahan adiga 24 saac waxbaad isbaraysaa waad ishormarinaysaa marka waxbarashada inaadan ku dadaalin haddii adigu ay ku tahay iskuul ma aadi karo jaamacad ma aadi karo macad ma aadi karo hadday tahay sidaas maba ahaba ilaaw wax ma isbari kartaa adiga ma ka faa'iidaysan kartaa waqtigaaga noloshaadii wax ma akhrin kartaa wax ma qori kartaa maalin walba wax ma isku saa'idin kartaa marka qaladka koowaad waxa weeye oo mustaqbalkooda dambana saameyn ku leh in aynan ku dadaalin waxbarashada haddaad qodobkaa ka fakatay good qof fiican baa tahay qaladka labaad oo inta badan dhalinyarada ay galaan waxa weeye xiriir aan caafimaad lahayn inay dadka la sameeyaan wiil iyo gabar baa laga yaabaa xiriir inay sameeyaan iyagoo yar waxaa laga yaabaa shukaansi in la galo jacayl lagu mashquulo hadduu alla ku ha dhicin ha jabin boowe baayo halkaas laga baxo xiriirka noocaasa oo xilliga yar inta badan ku dhaca maskaxda uma diyaarsano inay maarayso xumaha iyo samaha inta badan qofka kale ma fahamsano waxaana suuragal ah qofkii inuu miisaankii lumiyo oo uu iscabiri kari waayo iscelin kari waayo waxaad arkaysaa marka dad yar oo la leeyahay way xanuunsan yihiin jacayl bay la bukaan sariir bay saaran yihiin de waa noloshii xilligii uu bilaaban lahaa ogow marka inaad samaysatid xiriir aan caafimaad lahayn oo ay ka mid tahay wala sheekaysigaas tusaale ahaan shukaansigaas beenbeenta inaad ku mashquushid iyo inaad xiriir la yeelatid dad aadan waxba ka helaynin waxba ka faa'iideynin dad kaa weynba maanta dhan ku xiran tahay axzaab baad ku xiran tahay dad baad la sheekaystaa dad baa game la dheelaysaa marka maxaa looga fakadaa iyaduna waa inaad iska joojisid arrimahaas iyaga ah oo aad ka baxdid iskana yaraysid dhallinyaraa tahay waxyaabo badan baa ku haysta culayso badan baa waxaad arkaysaa dhallinyaradii kale waxa ay samaynayaan waxaad rabtaa waxa ay sameeyaan inaad samaysid laakiin waxaad ogaataa mar waliba miisaankaaga sida uu yahay inaad la socotay inay aad u fiican tahay qaladka saddexaad oo dhalinyaradu ay sameeyaan waxaa ka mid ah kuwa ilaahay wax siiyo kuwana wax siininba inay sameeyaan go'aan maaliyadeed oo qalad ah waxaa laga yaabaa qofka $200 inuu helo $1,000 inuu helo ilaahay inuu u wusciyo waxaa laga yaabaa family fiican uu ka soo jeediyo wax la midka ah
baabuur inuu iibsado saacad qaali uu iibsado lacag uu geliyo dhar muxuu ahaa ii sheeg waxba aanan ka soo baxaynin intaasoo joogoo kala duwan ayuu ku mashquulsan yahay ma aha xilligan xilligii waxaas aad samayn lahayd xataa aabbahaa hooyadaa haddii ay qani tahay oo cid fiican aad ka soo jeedid xataa you don't have to kuma qasbanid waxaas oo kale sababtoo ah waxaad u baahan tahay ma ahaba markaad shaqaystidood hadduu alla kuu roon yahay ilaahay subxana watacaala nicmo ku siiye gaar laakiin qaladkan yaraanta aad ku samaynaysid oo ah financial decisionska go'aanada maaliyadeed ood qaadanaysid inuu kaa xumaada adigoo yar waxay horseedaysaa hadhow dambe inay dhaqan kuu noqoto hadhow dambe inaad maarayn kari waysid noloshaadii saxda ahayd marka maxaa lagu daweeyaa lacag kastoo kusoo gasha mar waliba safegarayso waxaad isbendegaraynaysidna waxaad u fiirsataa xaggeen ku isbendegaraynaya xaggeen ku bixinaya qodobka kale ee muhiimka xiga waxa weeye in qofka dhallinyarada ah ee dhaqan u noqoto sharciga inuu jebiyo qaanuunka inaad jebisid booliiskay maalin kasta is haystaan khilaaf buu inta kula jiraa dacwaa ku furan wadamadaas ajaanibta oo kale haddaad joogtid oo kale problem badan laga yaabaa maanta inaad xabsi ku noqdo lagaa soo daayo haddana criminal recordkaagii ama dembiyadaadii inay aad iyo aad u bataan laga yaabo berri inaadan shaqo helin laga yaabo in systemkii lagu geliyo muxuu ahaa inaad tahay qof aan la shaqaalaysan karin xataa haddaad dalkii joogtid qof rabsho badan oo dhib badan in aad noloshaadii ku bilaabatid ma fiicno qofka dhalinyarada waxaa u fiican sharciga inuu ilaaliyo waddan kastoo ha joogo soomaaliya ha joogo dal kaloo ajnabi ha joogo qaanuunka meesha aad joogtid ilaali fadlan dowladda way xun tahay booliisku waa dad xunxun waxba kama qaban kartid shaqo kuu taalana maaha adiga shaqada kuu taalad waa maxay adiga ma noqon kartaa qof aan qaanuunkii jibinin marka dhaqan maxaad ka dhigataa haddaad booliis isqabataan haddaad dad isqabataan haddaad ciidan isla murantaan oo kale always inaad isdejisid oo deganaanta aad miisaantida aad iyo aad u fiican tahay arrinta kale ee muhiimka ee dhallinyaradu iyaguna qaladaad ku sameeyaan waxaa ka mid ah inta ay yar yihiin naxariis darrada qofka maxaa iga galay ayuu ku jiraa tartan competition qofba qofka kale inuu iska celiyo ayuu rabaa garabka ku riix yaan la ii soo dhawaanin inaad naxariis darradaasi noloshaadi ku bilaawdid waxa ay hadhow dambe horseedi kartaa inay dhaqan kuu noqoto oo caado ay kuu noqoto oo hadhow dambe aad noqoto qof aniga bas khalaas egocentric la yiraahdaa qof isaga iska fikirsanoo cid kale aan dani muraad kala hayno dadkoo dhan ma garatay marka zero sum game la yiraahdaa ciyaartu waxa weeye dadku inay dhintaan ama waxyeeloobaan ama dhib uu ku dhaco ayaa adiga anfac kugu jira faa'iidana kugu jirta mana aha caado fiican inay ku hormarto maxaa lagu daweeyaa marka aamin adduunyadu inay weyn tahay aamin muxuu ahaa iisha kaydka alle inuu ballaaran yahay waxaan ciriiriga ah ka bax waxaadna samaysaa wax alla waxaad dadku u qaban kartid u qabo gacantaada haddaa u taagi kartid u taag haddaad ku caawin kartid xooggaaga ku caawi intaasoo kale qodobka kale iyo qaladka kale ee muhiimka ee dhallinyaradu ay galaan waxaa ka mid ah inaynan ismaalgelinin naftooda waxbarashadii waa ka soo hadalnaa tii guud waxbarashadii guud laakiin ismaalgelintan hadda dambe oo aan ka hadlaya maxaa ka mid ah bachelor qaat master qaat PhD qaat haddaad doonto khalaas haye waxbarashadii makaa dhammaata maya investmentiga naftaada kuu soo hara marka adiga inaad ismaalgelisid caqliyadaadii xigmadaadii coaching inaad qaadatid consultancy gaar aad heshidoo kale si gaara lagu tababaro caafimaadkaadii ka fikirtid ismaalgelisid koorsooyin iska diiwaan gelisid adigii mar walba aad noqotid qof continuous development ku jira ogow hal shilin oo adiga isgelisid wuxuu ku dhali doonaa 10 20 30 goor dhow iyo goor fog intaba hadduu alla yiraahdo qaladka kale oo dhalinyarada ay galaan waxaa ka mid ah durba inuu rabo inuu cirka tago durbo hadduu jaamacad ka soo baxay $500 mishaar rabo inuu ka bilaabo dugsi sare hadduu ka baxay wuxuu rabaa inuu xafiis fadhiisto waxaa laga yaabaa in reerkiisii uu weyn yahay cid wax kale aynan haynin jaamacad laga soo saaray shaqada markuu raadinayo gorgortankiisii waxaa ku jira oo ka mid ah mishaarka la isiinayo $500 $400 $300 $200 hadduu ka yar yahay ma qaadanayo hada xaraam sax ma aha soomaalida kale qaladaadka macnaha wuxuu rabaa qofkii durbaba inuu muujiyo inuu koray durbaba inuu lacag helay laakiin sida saxda ah ee wax lagu helo sida ma ahna waana qalad maxaa ku daaweynaysaa opportunity iyo fursadaha markay ku soo baxaan bum durbaba qabso ka faa'iideyso lacag kaliya maaha waxa raadinaysa ogow markaad yar tahay waxaad raadinaysaa khibrad waxaad raadinaysaa mentoring iyo tababar iyo coach iyo team aan la shaqaysiyo qof wax kuu sheega iyo maalin walba qaladaad laga sax hadaad heli kartid iyadaa laftigeeda lacag ku ah ogow iyadaas laftigeed ayaa lacag ku ah qodobka muhiimka ah ee isaguna qalad ahaan ay u galaan waxaa ka mid ah inaynan ka faa'iideysanin dhallinyarnimadoodii dhallinyare markaa tahay waa inaad ka faa'iideystaa waa waqti ogow fatro weeye aan kuu soo noqon doonin
oo dhammaan hadda gadaal haddaan u eegno haddaan waxaas qaban lahaa dadku qaarkood ku leeyihin haddaan waxaan samayn lahaa iyo hadda kaa baxsanin maxaad samaynaysaa wixii dhalinyaro looga baahnaa okay sportiskii muxuu ahaa jirkaaga inaad dhistid inaad isnidaamisid inaad muxuu ahaa ishag meelaha aadid networking inaad samaysatid inaad dabaasha baratid inaad muxuu ahaa ishag wax alla wixii xirfada inaad hormarsan kartid 20 jirkaygii waxaan samayn karay ma samayn karay 30 jirkaygii 40 jirkaygii hadda waxaan samayn karo 30 jirkaygii waxaan samayn lahaa hadda ma samayn karo ma dhiiran karo geesnimadii ma hayo waxaan aaminsanahay wax inay soo dhaafeen الله يا يعلن لها أيو قف كستجوجا أو هذا وين يهنا كوجود عند تامرك هاي سحر حرين هودق من سيد نين قضية هودق من سيد نين دقة أو وين اللي حنجره وحلقة عن تام مسكحة لكن مركي تماد activity جاي قان قاعد الشدي بودي تانك إيو محوها إيش فينتشرز مشروعية قد بلا بيسيدي بود أو نع قلادات سمية طبعا مشروع قلب كف الشرب كع هكاجو بتلعب وحيلدكم من جد dhalinyarnimaday ka mid tahay waana ka faa'iideystaa markaad ka soo baxdeed adolescence-ga oo da'dan 15 18 meelaha ka soo baxdeed oo aad adulthood soo noqotid oo soo gaartid 25 30 xilli aad iyo aad u dhib badan weeye oo qofka noloshiisa identity-giisa uu ka shakiyo laakiin ha ka shakin inuu ka faa'iideyso move waxa ugu fiican waa maxay action waxa ugu xun waa maxay fadhi waa inuu qaamuuskaaga ka baxaa qaladka u dambeeya oo ay dhalinyaradu galaan waxa kamid ah waana qodobka ugu muhiimsan gadaal ayaan u dhigay qodobka koowaad in laga dhigo ayay ahayd inaad tiraahdaa laga yaabaa laakiin ama koow ka dhig ama soddon ka dhig ama koow ama muxuu ahaa midka u dambeeya ka dhig it's all same waa in cibaadada aynan ku ahayn mudnaanta koowaad cibaadada haddii mudnaanta koowaad ku ahayn mushkilo weyn ayaa ku qabsanaysa la socda dhalinyaro waliba qof waliba bini aadam waliba muslim waliba oo cibaadada priority number 1 ay u tahay waxba kama hadlaabaan wax waliba ku sahlaada la soco masalan salaadaadi quraan akhriskaagi adkaartaadi tasbiixdaadi waxyaabahaadi haddii inta aad gadaal dhigtid oo aad tiraahdo jaanis uma hayo oo waxaan ordayaa shaqadii aan burinaya ogow gacmaha wax kuu buuxiya lagu siin doonaa waxna aadan ka helin kumanaan kun oo dollar baa qaadan doontaa baraka aanan lahayn cagsigeed haddaad samaysid laakiin oo cibaadada ku dadaashid wax yar baa lagu siin doonaa barakoobaya wax badan baa lagu sii badaya sii barakoobaya waxaasoo dhan wax ka daran baa jira waxaad helaysaa deganaan qalbi ah waxaad helaysaa deganaan dhinac waliba ah waad ka quruxsanaanaysaa dadka kale la soco cibaadadu waa asal ha ilaabin qof waliba qofka uu ka hormarsan yahay noloshan jooga horumarka saxdan ka hadlayaa la socoyaa daara in la dhisto iyo gawaare in la saarnaado keliya ma aha nolosha saxda ah dadka ku guulaysta waa dadka qalbi ahaan u faraxsan Soomaalida dhageysano ma adan maqal kuwa malaayiin dollar iyo balaayiin dollar diyaarsaday dabaqeed dhistay isla dabaqeedii ay dhiseen qaybaha ugu koreeyay intay tagaan kadibna isa soo tuuray warqadna meesha intay ku qoreen dhigay kadibna yiri farxadii aan raadinay ilaa hadda waa helaahay adiga hadii lagu cabiray iyaga maxay isku noqonayaan wax kaafi kala dheeri ah lacag ma aha ujeedadu waxa weeye raaligelinta alle subhanahu wa ta'ala qodobadaas ayaan rabay oo qaladaadka ah inaan idin la wadaago haduu alla yiraahdo oo dhalinyaradaas sheekadeenni ka soo dhaxbaxday runtii oo aan isleeyahay adiguna waad ka faa'iideysan kartaa ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka hayna waafajiyo waxaana rajaynayaa dhalinyaradu waa xoog waana inay aaminaan inay xoog yihiin qofkuna ogow marka isaga uu is aamino waxa uu yahay ayuu waxna isu qaban karaa dadka kalena wax u qaban karaa dalkiisa iyo diintiisa iyo ummadiisana wax u qaban karaa ilaahay khayrka hayna waafajiyo hada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum